عبد الله أحمد عبد الله يجير نكلي رقفها رجعنا شرفت بدن إيه وسير كاين شرفت بدن عيسى جرورة أن قعنت عن كيل البركة طلب كينا سيان سنة نقدر ما إن شاء الله تعالى أنا كان وأقوم هتعلنينا بقول قراد ما سنتين إلهي جنة إذن جلية أمريكينا الله ديرية وبتكينا إلهي هفي يوبية مالكينا إلهي هبضية أنت سوق قور حتى تاي كسر نقطة odayaasha dambasan ka mid ahne kumitiyada iyo sita midka kulligu ma jiro laakiin xalimiga ay dawladda meesha halaawday dad meel isku halayna aan heeno dawladda inaan wacnay dawladda aan wacnay waa un countiga ismaamulka oo jiil waxa aan rabnay waa ka helay dawladdu waxa la dhahaa wixii loo baahday wixii laga hela wixii laga hela loo baahan halkoo qof oo 1 milyan iska qaatay waxa ka daran intaan mayaato meeshan tuurun sida saxda waxa way dawladda dhan oo wax kasta laga helo oo meel loo raaca in la helo fiican meesha dawlad laga loo baahdo dhaarta loo baahdo waa bergo kale dhaarta iideed waana ilaahna badbaadi laakiin dawladayna waxaan u soo dooranay oo u xulnay shalay bergan ka helno dhaar kasta looma baahan karo dawlad dhaarta loo baahdo hadaas hesho ma hadan u cilnaynaa gafanaha waxa way in wasiirka ilaa inta noo imaaday waxaan u cilnaynaa ma had oo run ah oo dhaba waxa aan ugu imaadnay si aan ugu helnay haddana usuun wixii noogu imaaday in naga helaa haniyeysta waana ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol wasiirkayn iyo gafanahayn iyo inta la socoto maanta na soo qaabisay waxaan leenahay waxaana dawlad la dhaha dawlad kale ma maqan oo xilli kasta la helaynin wixii looga baahan yahay oo mayaatadan ay helaynin oo qofba aan alxamdulillah xafiis joogo iska qabow maalin kasta iska cunaa hore ay noo dhibtay berga waxa way mayaatadi ninkan si saxas oo dawladnimo leh oo alaabteeda leh as noogu soo diyaaray waxaan leedahay Axmed Jiir meeshaan markaan waxa loo baahan yahay dawlad Ciise Garoore wasiirka wadankan aan noogu xil saaray dad isqaami oo xilka aan iska yareysanin oo ilmahan ee mayaatada meesha ku gubanaysa hal mar u soo danqadiyo na soo hoobo waa boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol dawlad sidaan la dhaha ma ahan walaa dhinaca qaf iska la gala oo 3 iyo 4 milyan halko qaf iska cuna ee intaan mayaato meeshan ku beeys oo la dansanayno magac ceelkooda dum waxaas xariir la dhaha maanta waxaan u mahadinaynaa oo jiir aan mar dambe aan u daynayn magac xal maqribka ayaa lawday hadaas bas noo soo garab istaag wax kale nin walba reer asqaba nin u baahan mala saan oo kale aan kaaga baahanahay waqti kasta waa kula jirnaa xali maqribka waxaan naga hadlaabay ceelkan dambas ceelka markii saan nooga hadlaabay waxaan u wacnay waa ku silmi wayn intaan anaga ka kacna wasiirka ayaan wacnay inkii wasiirka ayo Ciise Garoore oo wasiirkii countiga wajeerahay ayaan wacnay si tartiibaas wax walba noogu diyaaray wax kasta ayadoo diyaar yihiin saaki habeennimaan meeshan ka saaki miis waaga bariyay wax kasta rag maxaan ay farsamo aqoon ka ahay injineeriyagi waxaan ku yiraahdaa rag waayirinki kulli ayaga wada diyaar oo jonjo ayihiin ayaan u tagnay wixii waa kuwan nabadii khayr qaadar wax shilin ma la weydiin ma laha idan shilin la weydiin la wixii qaata wixii idan qoon shilin aan la warin alla wixii waa kuwan qaata ma haddaas ilaahay aan ku mahadinaa ka soo koow dawladdi as u sokoy gafanaha asagoo badbaadina gafanaha arrimihiisa ka socdo badbaadina ayaan boqolkiiba boqol ayaan u mahadinaynaa gafana waxaan u mahadinaynaa wasiirka waxaan u mahadinaynaa gafanaha dawladdi oo dhamaanteed diyaar ay noo noqotay wixii dhibaato oo nahaysay waa ka baxnay waxaan codsanay wax kasta afkiina ku dhaaqaan tahay meesha yeelo dhan kulli waan anagoo shilin la weydiinay boqolkiiba boqol aan mahad u celinayna waa maasantahay dawladda madaxeeda leh dawlad jirta Allah ka dhigta nabad Allah ka dhiga khalaasada Allah ka qabta dawlad jirta waa u mahadinaynaa waana garab taagannahay عليكم وان mahadsantiin inta noo imaaday oo wasiirinta iyo gafanaha wax walba inta martay noo imaaday santa saana waan ugu mahadsantiin barka oo maanta aan xoolii waa wahanay haddana wahanku waa naga dhacay waa mahadsantiin asanta saana inta martay noo imaaday waa mahadsantiin waxaan galabta socdaal ku soo gaarnay magaalada Dambas oo boolka ama mashiinka ay biyaha ka cabayeen cilad noogala sheegay shalay galabtii maantana sida ugu dhaqsada badan teamkii oo bool maintenance ku hogaaminay Maxamuud Xaji iyo odayaalkii kale oo la shaqeynaysay ay u imaadeen annagana kormeer ahaan aan ugu imaanay in shaqadii in laga meel gaaray iyo an kala aan hubsana ayaa horta galabta aan reer Dambas aan ugu imaanay kuna soo salaanay waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo ilaahigii macbuudkaay oo annagoo nabadeen ugu kulansiiyey boolkanayto rabana inuu u mahadceliyaa ilaahay ka bacdi
dadkii isxilqaamay oo bohol maintenance-ka oo meeshaan jooga ilaa maanta dhan ilaa xalayna joogeen coos mudulla meesha la yiraahdo oo saa oo kale mashiin halawday soo hagaajiyeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxa kale oo inaan mahad celiya sidii maaragtay wala shaqaynta naga dhaxaysa annaga iyo reer Dambas guddiga maamulka biyaha u xil saaran aad iyo aad u mahadsantiin haddii tahay guddiga biyaha u xil saarnay oo hogaaminaya chairmanka ilaa operatorka ilaa committee-da water users-ka oo Dambas si wanaagsan oo sharaf leh ayaan kala kulanay dad maaragtay aad iyo aad loogu shaqayn karo inaad tihiinna waa noo soo bandhigteen marka aad u mahadsantiin mideeda kale waxaan rabaa inaan idiin sheega annaga dawladda tani uu hogaaminaya governor his excellency Ahmed Abdullahi Jiir inuu maamulkiisa yahay mid maanta dadka tuulo kasta oo joogaan wixii looga baahan yahay inay soo bandhigi karaan waliba sida ugu dhaqsada badan ay dadka inay ugu soo adeegaan noogula tiragalay ayaanaanay maadaama aan nahnay waliba kooxda ama idaaradda ka socota water services waxaan mar kasta nogula booriyaa uu governorna noogu tiragalay inaan mar kastaba dadka u dhaga nuglaana u soo gargaarna wax allah wixii annaga karaankayna ahna aan maaragtay aan kala qabanna dawladdana maanta ay idinkan shilin aan linka caawinin ama lidin waraysan halka linkugu keenay shaqadina lidin qabtay marka aad iyo aad ayaan arrintaayda aniga haddii aan ahay wasiirka u xil saarnay biyaha aan ugu faraxsanay arrintaayda waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheega dadkan aad arkaysiin oo shaqadan wada ma nastaan xali waxay joogeen caws mudulla maanta Dambas ayay joogaan ilaa waqtigan haddana meeshaan way ka socdaan waxay u socdaan beerjanay oo aydana boolkeeda cilad u qaba qalabka asaga ahna anaga aan store-kayn aan ka soo bixin oo ayaga ay gadanin haddana ayagana loo socdaa in la caawiyo sifa ay bulshada meesha ku nool ay bigu helaan marka mar kasta waxaan idinka codsanaynaa dadka ayaga ah oo idin imaada oo shaqada idin haaya oo idinka awgiin loo shaqo gili inaad idinkana wax la qabataan la shaqaysaan gacmaha aan isqabsanno gidigeenba si waxyaalaha aan rabna aan ugu meel gaarno